madaxweyne ku-xigeenka koobaad ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiyay shirka golaha amniga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kaasoo ka qabsoomay madaxtooyada ku-meel gaarka ee magaalada Kismaayo. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga, wasiir dowlaha wasaaradda amniga, la taliyaha madaxtooyada, la taliyaha guud ee ciidamada iyo saraakiil ka socotay qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa diiradda lagu saarayay xaaladda ammaanka ee deegaanada ay dawladdu gacanta ku hayso, hawlgallo la qorsheynayo in lagu xoriyo deegaanada gacanta ugu jira kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, iyo qabanqaabada shirka amniga qaran oo la qorsheynayo inuu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Shirka ayaa marka uu soo ilaaday waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka amniga Jubbaland mudane Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janad. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri diin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Ba'd aad iyo aad baa mahadsantihiin walaalayaal. Shirkan oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan wuxuu ku salaysnaa oo ay fadhiyeen golihii amniga dowlad goboleedka in la iskaga wareysto awalan xaaladda amni ee uu ku sugan yihiin gaar ahaan gobolada Jubbaland oo dawladdu gacanta ku hayso iyo xaaladda amniga sida ay tahay. Wuxuu kaloo ku salaysnaa wufuud soo socoto oo runtii beesha caalamka iyo dawladda dhexe dalka Soomaaliya oo federaalka ah iyo dowlad goboleedka oo lagu qaban doono halkan diyaar garowgiisii oo ayadana looga wada hadli doono hadii alle xaaladaha amni ee dalka Soomaaliya guud ahaan iyo sidii dalka dib u xoreen loogu sameyn lahaa iyo sidii ay ciidamadu u wada shaqeyn lahaayeen kuwa AMISOM iyo kuwa Soomaaliyeed intaba haddii ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliya iyo haddii ciidamada dowlad goboleedka taasoo ahaa qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho oo golaha qaranka uga hadleen amniga qaranka uga hadlayeen sidii loo hawshaas dalka dib u xoreen loogu sameyn lahaa ciidamadana ay u haanan lahaayeen amniga dalka oo la wareegi lahaayeen marka inta badan shirku barnaamijyadu ku salaysnaa asaas u ahaa. Si kastaba ahaatee shirka ka furmay magaalada Kismaayo ayaa ah mid laga aaminsan doono sidii loo dhaqan gelin lahaa qodobadii ka soo baxay shirkii golaha amniga qaran oo 10 bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Cabdilaahi Yuusuf, TV-ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada Kismaayo.